dadka barakacayaasha ee ku nool gudaha degmada Garadag kuwaasi oo kamid ahaa dadkii ay horaantii sanadkii 2017 ka caydhoobay xoolahoodii ay lahaayeen oo muddo 2 sano wax siin jirtay hay'adda WFB sidoo kalena aan wax deeqaasinin muddo gaadhaysa 4 bilood ayaa waxay si naxariis leh uga codsadeen hay'adda caalamiga ee WFB inay si degdeg ah u soo gaarsiiso deeqihii kala duwan ee hay'addu siin jirtay dadka barakacayaasha oo ka dayrinaya xaaladooda nololeed ayaa sheegay inay xaaladooda nololeed imika marayso meel aad u liidata waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan laga jaray raashinkii hay'adda WFB waxaanu ka codsanaynaa iyadoo mahadsan inay noo soo deysay raashinkii ay nagu taakulan jirtay ee ay siin jirtay wali halkii ayaanu joognaa sidii ayaan baahidii noo haysaa ayaan ugu baahannahay waxaan nahay dadkii barlaawayaasha ee xoolo dhaqatada ahaa ee maxay tahay waxba haysan ee ku noolaa raashinka ayar ee WFB ayna siinayso ilaa iyo haddana waxaanu ka codsanaynaa sidii ayaan ugu baahannahay raashinkii inay WFB inay noo soo deysay iyadoo mahadsan waxaan kaloo leeyahay waxaanu halkaan aynu u nimo oo aynu isugu soo baxnay inaynu hay'adii WFB ee raashinka ina siin jirtay oo raashinkii muddo 4 bilood ay nagala maqnayd inay noo soo deyso inagoo ahaan dadkii maxay tahay xoolo dhaqatada ahaa ee barakacayaasha xoolahoodii ka barakacay xoolahoodii uu ka dhamaadeen oo hadeerna si baahidii aad u hayso oo maxay tahay abaartina ay nagu laba kaclaysay oo aanu xoolihii yaraa noo soo kacay wali sidaa ugu sidano lulaha ugu sidano oo abaartii nagu laba kaclaysay ayaanu ilaahayna barayna bini'aadankii waxna siin jireen aanu barayna inay noo soo dayaan raashinka WFB oo ay nooga qaadaan xayiraada nooga qaadaan hana loo soo daayamaan leenahay hay'adii barakaysnayd ee raashinka WFB bixin jirtay hana soo dayso taakula raashinka hana soo dayso oo dawladdu hana gacan qabato dawladda barakaysan hana gacan qabato oo hana dadkii goobaanka garada ku soo xirooday ee abaaru soo xireeyeen ee ay taakulaysay hay'adda WFB ay siin jirtay raashinka 4 bilood maanaan arag raashinkii waqti baan hadarin yar ula sugannahay waxaanu u baahannahay hay'adii Allah barakeeyo waanu salaamaynaa inay noo soo celiso raashinkii oo nooga qaado xayiraada naga saaranay nooga dulqaado oo soo taakulayso baan u baahannahay oo sidii ay noo siisay noogu soo celiso baahidii ay noo siisay wayna haysaa kacayaasha haya abaaraha afooyinka ay xoolahoodii ka qaadeen dadkan oo sidii wali ay u hayso baahidii oo kaararka halka ka muuqmuqda adarkadeen ugu shibi jirtay lacagta WFB taakulo marka waxa weeye muddo 4 bilood hadeer uu ka maqnaa raashinkaasi wuxuu kaga maqnaana anagu ma garanayno marka waxaan u baahanahay in dadka raashinkoodii loo soo celiyo oo la soo taakulay sidii wax loo siin jiray raashinkoodii loogu soo celiyo mahadsan marka xigta waa aragtaan qaxoontigii ilaahay xoolihiisii ka qaaday waa aragtaa kaarka yar baa wax lagu siin jiray ilaahay baa dadka ugu soo dhiibay iyagu waxba ma haysanaan waa nala mid baan maanay la way nala soo gaari lahayn ilaahay baa laakiin ugu keeni jiray waa u soo dhiibi jiray 4 bilood wuu ka maqan yahay dadkii la gaajay iyo haraad buu meel la tuban Abdi Salaad Jamac warbaahinta Star TV gudaha degmada Garadag.